هذا اليوم اللي لقوا فرحي مدني ومروى مهركودي دعي مرحبا يوم ذكت لهلا سعبي مشعرك هذا شو أروس أولاد مسؤولة مسلم أهو دينه محمد يروداي مبتغو مولا خيدي سيو أولاد مسؤولة مسلم أهو دينه محمد يروداي مبتغو مولا halkan waxaa ku sugan wariyeyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala guud ahaan wadanka Kenya oo dhan TV-yada idaacadaha website-yada iyo qaar kale oo badan waxaanu tahniyad u diraynaa boqorka iyo boqoradda Idris Ismaaciil Cabdi iyo Naciima Cabdi Axmed oo dhawaan meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa waxaanu leenahay wada noolaado nabad ku waara iyo ducada rasuulka barakallahu laka wa baraka alayka wa jam'a baynakuma fi khayr aw bi khayr waxaan kale anigu hadda halkan wakiil ka ahay oo iyaguna salaanta iyo tahniyada ay soo furay ayaalo Xuseen Cabdi oo isna hoon keebla Amran Xasan Cabdullaahi Liibaan Cabdisalaan oo agaasimaha Somali Channel ah iyo Xasan Gudaal oo isna barkulan ka shaqeeyo oo Idris saaxiib ahayn bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Maxamed Xuseen Garaar injineerka hoon keebal TV ee dalkan Kenya halkan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa saaxiibkeena ama injineerka guud ee hoon keebal TV injineer Idris waxaan idin leenahay adiga iyo marwadaada nimco bashbashi barwaaqo ku noolaada wada noolaado nabad ku waara magacaygu waa Saciid Cabdullaahi Kulmiye Nadaara waxaan halkan hambalyo uga dirayaa injineer Idris iyo gabadha oo dumarka dunida ka soo xushay ee Naciima waxaan leeyahay gurkiina guur khayr gurigiina gurinage anigoo ah Axmed Cabdisamad isla markaana ka tirsan bahda warbaahinta ummadda Soomaaliyeed waxaan u hambalyeeynaa Idris Ismaaciil iyo gabadha uu mehersaday oo la yiraahdo Naciimo Cabdi Axmed labadooda waxaan leenahay guurkiinu ha noqdo kii soo degdega warbaahinta oo dhan waa idin garab taagan tahay aad baanan ugu faraxnay markaan maqalnay Idris oo mehersaday bismillaahir rahmaanir rahiim marka horeeto anigoo ku hadlaya magaca warbaahinta caalamiga ee Saadaal isla markaasna kamid ah warbaahinta ama saxafiyiinta ka howlgasha dalkan Kenya waxaan hambalyo magaciigana la yiraahdo Cabdiqaadir Nuur Maxamed Filibiin waxaan hambalyo kal iyo laaba u direynaa farsamayaqaanka TV-ga caalamiga ah ee Hoon Cable TV Idris Ismaaciil iyo waliba Nimco Axmed oo meherkooda ka dhacay magaalada Hargeysa waxaanu leenahay labadii isku waara ilaahay ubad khayr qaba kala siiya dadkooda iyo deegaankoodana facaalaha in ka dhigo anigoo kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee ku sugan dalkani Kenya waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin farxad leh uga dirayaa magaceyguna waa Ubax Daahir Cismaan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin aan uga dirayaa arooska ama ay yiraahdeen meherka injineer Idris Ismaaciil Cabdi iyo waliba marwadiisa qaaliga ah Nimco Cabdi Axmed oo meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa waxaan leeyahay isku waara noqda labadii arooskoodu soo degdegay ee waliba kala hela wiil iyo cano gabar iyo dollar ayaan leeyahay labadii lagu nastee nagaade wada jira Allah idinka yeelo awalan waan idin salaamay dhammaan shaqaalaha TV-ga Hoon Cable TV marka xiga anoo magacaygu yahay Najax Maxamed Cali oo kamid ah wariyeyaasha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya wadankan Kenya waxaan jecelahay inaan halkan hambalyo iyo tahniyad uga diro meherka farsamayaqaanka faraha fudud ee TV-ga Hoon Cable Idris Ismaaciil Cabdi iyo waliba Naciimo Cabdi Axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Hargeysa waxaan leeyahay noqda labadii isku waara ee ubad khayr qaba oo eeba kala siiyo magacaygu waa Calula Nuur Calula waxaan kamid ahay wariyeyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Nairobi gaar ahaanna waxaan ka shaqeeyaa telefishinka Somali Channel TV waxaan halkan hambalyo diiran uga diraynaa annagoo isku dhan magacayga iyo magaca wariyeyaasha kale ku hadlaya saaxiibkay Idris Ismaaciil Cabdi iyo xaaskiisa uu ka soo xushay haweenka Soomaaliyeed ee la yiraahdo Naciimo Cabdi Axmed waxaan leeyahay saaxiib arooskiina Allah ka dhigo meherkiina mid khayr arooskana noo soo dedejiya rag badan oo sida Cali Ismaaciil Caliyana way jiraan oo dooba ragaasna ha lagu la taliyo inay guursadaan. Assalaamu calaykum. waa Cabdiqaadir Jilaani
agaasimaha idaacadda Radio Salaam anoo ku hadlaya magaca shaqaalaha iyo wariyaasha idaacadda waxaan hambalyo iyo bogaadin halkan uga dirayaa saaxiibkeen Ciidruus iyo xaaskiisa Nimco kuwaasoo meherkooda ka dhacay adiraahda magaalada Hargeysa waxaanu leenahay guurkii lagu raayo insha Allah magacaygu waa Maxamuud Axmed Nuur waa agaasimaha idaacadda Frontier FM ee ka howlgasha dalkan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi runtii markaan maqalay waxaa guursaday Ciidruus Ismaaciil ayaanu si aad markaasi waxaan u jeclaanay in halkan aanu salaan uga gudbino hawada anagoo markaasi ugu hambalyeynayna si aad ugu faraxsan waxaan leenahay guurkiinu ha noqdo kii lagu waaro ubad khayr qabana laga helo Maxamuud oo ah chiefkii warisgaarsiinta ama informationka halka joogo oo dhan waxaanu ama aabahood waxaanu hambalyeyn horeyna uga soo shaqayn jiray wasaaradii warfaafinta waxaanu hambalyeynayaa wiilka iyo gabadha arooskooda khayr iyo barwaaqo iyo bashbash ha ku waareen magacaygu waa Cabsitaar Dahir Sabriye waxaan ka tirsanaa telefishinka Royal waxaan halkan hambalyo uga dirayaa arooska iyo aroosada Ciidruus Ismaaciil Cabdi iyo waliba gacalisidiisa Nimco Cabdi Axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Hargeysa waxaan leenahay ubad qarqaba kala hela kuwa isku waara Allah idinka yeelo wada jireen nabad gala Allah iyo idinka yeel dhinaca dalabka heesaha heeska aan dalbanayo dooqa waxaan u deenayaa Nimco Sabriye oo anigoo wakiil ka ah asxaabteedan kale in hees cajiib ay noo hesho imikana waxaa loo qaadayaa injineerka heestii ducada ahayd lagu nagaade wada jireen nabadgala allahayow idinka yeel